qasada igu dhacday waxa weeyaan inan baan isjeclayn adigu inan baan isbaranay inankii si dhawaan u soo jeclaanay muddo badan baan wada soconay adigu inankii muddo 2 sano wada soconay waxa dhacday ayaa family-goodii heerkoodii markuu baray waxaan ku dhahday hooyadii iyo family-gii wixii uu baray waan isdhex galay adigu xaafadooda waan tagi jiray xaafadeedii kale noqotay markii dambe waxa dhacday islaantii baa xanuunsatay hooyadii baa xanuunsatay kadib islaantu may lahayn hablo iyo waxaas ma dhal inama mooyaane inanka hablo lama dhalan inanka hablo lama dhalanin wiilal mooyaane islaantii baa xanuunsatay walaal faalig baa ku dhacay deetana wuxuu igu yiri hablo lama dhalan waad ogtahay islaanta inaan qaadan doonayo Itoobiya geeyo cid la qaadana ma hayo meela qaadaysa baan ku yiri adigu sidii baa waxaan ku raahday aan islaantii kula qaaday Itoobiyan islaantii geynay ilaa 6 bilood meelaha markaan ku haynay ayaa waxaan ku raahday inankii inan kala labadiina kaliya markaa labadeeda wada socday cid kale idin socday labadeeda qura qaadnay deetana inankii inan kale ay isbarteen meesha joogtay oo ina Soomaalida ardayda joogay isbarteen deedna adigu inantii hoos isku meersadeen hoos ahaan isku meersadeen inankii baa meersaday adiga kula sheekaysanaayo hooyadii la qaaday Itoobiya inankii aan isjeclaynay dhammaay waxaan ku raahday hooyadii aan la qaaday halka wataraaga dheer u galay deetana adigu wax dhacday inankii markay si hoos ahaan isku meersadeen adigu waan ogaaday la joogteen soo soo laabay ma Itoobiyan joogaday Itoobiyan la joogaa islaantii baan hayay deetana adigu markii dambe wax dhacday waxaan ku maxaad saan u sameysay maadaama indheena uu isjeclayn waqtiga inta leegtan adiga ku soo horay halka ku yimid oo hooyada aan hooyada kala ka dhigto taraaga inta la kula soo galay hooyada kula hayay maxaad gabadha kale iga doorato aad u guursato maybe guuro u dafira ma jiro buu yiri maba guursanba dafiraad halka soo istaagay ilaa waxa ku raadada Soomaaliya xmaq Soomaane adigu waan ogaaday markiiba deetana hooyadii baan u sheegay waxaan ku waxaan sidii iska soo noqo wadankaaga iska soo noqo oo qofkan taraaga inta lagu galayba cidlu iga dhaqaaqso maaha way khiyaamay kadib iska soo noqon sidii markaan sidii iska soo noqo islaantii bay igu dhigtay oo igu tiri adiga iyo isaga macnaa adaa ii muhiimsan hooyo ila joog ciidiga joogto ma haysto adigu islaantii ba halkii iga calaashay islaantii markaa ka calaashay kadib islaantii walaa waan iskala joogo sababta waa hooyada kala soo maaha hooyadina cidlo inaan kaga dhaqaaqo damiirkaygii ma siinayo isagana way dayrisay oo waxay ku tiri kuma dhalin oo way irdo way habaartay adigu islaantii waan hayay muddo 6 bilood sanad iyo 6 bilood abaan hayay adigu muddo sanad iyo 6 bilood markaan hayay waan ka imi anigu markaa waxa inan kale ay bedeshay oo ka timi maadaama intaas oo dhan dhakhtar ku jiray inan kale ay bedeshay timi inantii kale adu markay timi kadib waxa dhacday iyaguna family-gooda deetana inantii kale adu markay timi baan ka imi islaantii way dhimatay ka imi isagii habaar bay kaga dhimatay moogta islaantii markay dhimatay kadib bay aqal galeen ayagii markay aqal galeen waxa dhacday waxay yimaadeen Hargeysa ku aqal galeen Hargeysa degeen 2 bilood adu markay gur lahaayeen ayuu ninkii shil baabuur ku dhintay ninkii inankii sidoo ku dhintay